ganacsade Maxamed Jabitaawi ayaa raaligelin ka bixiyay hadal dhawaan uu mariyay warbaahinta kaasoo ahaa in madax dhaqameedka uu ku dhaliilay inay ku dhex milmeen siyaasadda markaana ay wadaan dad ay la rabaan xilal kala duwan. Ganacsadahana ku sugnaa magaalada barakeysan ee Maka al-Mukarrama isla markaana gudanaya maanta acmaashii cumrada ayaa sheegay in hadalkiisii la bedelay isla markaana si kale loo micneeyay waxaana uu ka codsaday ismadaasi inaan hadalkiisa si khaldan u fahmin isla markaana ay cafiyaan. halkii maalinkii daweyto diyaaradda soo fuulayay ismada ku xaraan waxa halkan nasuu yiri nasuu qali ismada xaal baa siinaya باقينا اسم أنقار ولا شيء إذا ما شيء وحال لها أون والحوار ولا استدعي هذا الماضيسة هذا شنو وجه من اسم قارو أرض قنوته ثم وحي ودي عينيا إلهي الله هذه كنا غضب إلهي وحكبر يا إن خاتمه إلهي خير يكون ختمه عمر الله عافمات ما يكبر إياه هو بكون عافمات الله فيه هو عافمات قبنا الله سياديه اسم الله رأي وارد لله اسم الله يجيباتين ورياش يجيباتين عد أنكار دولي يعد أنكار ماغي من نمجه مرحبا حلي هاي يقرر لي هذا القبل النسوق عليه عرسكم مرسلها ودقا الحوينها الله دورتين الله سارنه قال الجلن باقب لحنايا وفي إسلام وماغي مانا ماغيو وانا يجيسو دعينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.